السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فضلا هدي aad nagu cusub tahay channelka subscribe saar kambaleelkana furo si cashar walba aan soo gelinaa oo si toos ah kuugu soo dhaco. Caawa waxaynu baran doonaa sida WhatsApp-ka message-ka lagu soo diro ama saaxiibka uu ku soo diray ama saaxiibada ku soo dirtay qofka kale uu ku soo diray marka ay delete gareyso sidii aad adigu u heli lahayd waxay delete gareysay ku soo qortay. Waxa kale oo aynu baran doonaa sida WhatsApp-ka finger lock loogu xiro ama fingerprinting-ka kolkii waynu isku soo laabanay. walaal waxaad tegaysaa WhatsApp-kaaga. WhatsApp-ka markii aad tagto sidan buu kuugu soo baxayaa. waxaad tegaysaa saddexda dhibcood ee midigta ku qoran. saddexda dhibcood markaad sidaa u soo furto waxaad tegi doontaa meesha ay ku qoran tahay settings. settings-ka markii aad tagto meesha ay ku qoran tahay accounts ayaad ka sii tegi doontaa. account markaad sii tagto waxaad ka dooran doontaa meesha ay qufulku ku qoran yahay ama preface, halkaas aad ku dhufanaysaa. markaa kor ay hoos ayaad u soo degaysaa walaal markaad hoos u soo degto waxaad iman doontaa meesha ay ku qoran tahay fingerprinting lock oo halka ugu hooseysa. kadib walaal waad ku dhufanaysaa. markii aad ku dhufato walaal waxaad furan doontaa calaamadda yar. kadib sidaa markaad u furto walaal waxaad samayn doontaa fartaadii ayaad saaraysaa. fartaydii ayaan saarayaa. wuu iga diiday. wakaa sax hadda walaal fartaydii buu yeelay. markuu yeelo walaal after 1 minute baad ka dhiganaysaa ama after 30 minute ayaad ka dhiganaysaa. haddaad doontana sidiisa caadiga ayaad ka dhiganaysaa walaal. sida caadiga markaad ka dhigato markasta oo aad ka baxdo WhatsApp-kaaga walaal aad ku soo noqoto istiraado wuxuu ku weydiin doonaa logga fingerkaaga. haddii kale xataa aad adigu qof u dhiibto moobilkaaga ma geli karo WhatsApp-kaaga. walaal taas sidaasaynu kaga baxaynaa. halkaa waynu isla fahnay ayay walaal ila tahay. walaal waxaad kaloo aad u baahan tahay inaad soo furato application yar baad soo dejisanaysaa. not safe baa la yidhahdaa. application-ka walaal waxaad ka heli doontaa Play Store-ka ayaad walaal ka helaysaa. walaal Play Store-ka markaad tagto walaal Play Store-ka sidan kuugu soo furmo. waa halkaas waxaad ku qoraysaa not safe. not safe markaad halka ku qorto walaal ayaad siinaysaa. walaal markaad siiso searching ayuu ku jiraa uu soo qabanayaa. walaal haddii aad nagu cusub tahay fadlan channelka subscribe saar kambaleelkana furo walaal si cashar walbaan soo gelinaa oo kugu soo dhaco. walaal waad arkaysaan not safe. walaal application-ka yar ee kambaleelka calaamadiisu tahay walaal weeye. walaal aniga imika open ayuu ii yahay oo waa ii installation yahay. walaal adiguna waad la soo degi doontaa. sida loola soo dego walaal casharo badan horeynu ka sameynay uma baahnin bay la tahay walaal inaynu mar dambe ku noqono. walaal markaad la soo degto face-kiisa koowaad walaal sidan ayuu kuugu soo baxayaa. walaal sidan markuu kuugu soo baxo waad arkaysaa waxaa ku jira walaal application-nada moobilkayga ku jira oo dhan. kee ayaad doonaysaa buu leeyahay inaad notification-kiisa hesho. walaal kuwan oo dhan uma baahnin. marka WhatsApp-ka ayaynu safe gareynaynaa. inaga calaamadda WhatsApp-ka ayaan furanay. sidaa walaal markaynu furanno hadda message-ka aan delete gareeye WhatsApp-kayga aan ku soo diro message-kaas anigoo delete gareeye haddana anigu waan arki karayaa. walaal tusaale ayaan idin siinayaa. aniga waxaa moobilkaygu jira 2 WhatsApp baan ku wada isticmaalayaa. labadeeda WhatsApp ayaan 2 message oo kale iskugu dirayaa. kadibna waan delete garanayaa waana arki doontaan walaal. walaal waqtigaas halkaa waxaan ku qorayaa walaal assalaamu calaykum walaal qaali. walaal assalaamu calaykum walaalo. labada message baan qoray. isla ilbiriqsigaba labadii message waan delete garanayaa. walaal waan iga delete gareeyay.
hadda walaal message notification degdeg ayuu soo diri doonaa oo ah message-dii aan delete gareeyay aniga ku soo socday. Okay, halkan tegina. Okay, waayahay walaal way soo baxaysaa. halkan ka eeg walaal. Okay, walaal wuu yara sheegay inuu ku soo celin doonaa. dib male walaal waan ku soo celinaynaa. Okay, walaal waan ku soo celinaynaa. message-kan ku noqdo kan ayaan uga dirayaa suug. fingerprint-ka ayuu weydiinaya ma aragtaan. marka hore aniga ima samaysnayn laakiin marka uu abuuran yahay marka labadii message delete-ka xagga uu ka soo saaray xaggan marka waa inuu ka soo saaraa problem. السلام عليكم. Okay, walaal kuwa hadda soo dhacay waa arkaysaa bay walaal ila tahay. Okay, marka walaal message-dii hore aan delete gareeyay ayuu soo dirayaa.